iyadoo uu guud ahaanba faraba'an uu ku hayo ayaxu Somaliland ayaa waxa ay beeralayda guud ahaanba ku dhaqanaa gobolada Awdal iyo Salal ay la daalaa-dhacayaan koronkortii uu ka tagay ayaxaasi halkani oo ah degmada Baki ee gobolka Awdal oo ah degmo beeralay ah wax soo saar badanna leh ayaa waxa iyagu ku howlan yihiin sidii ay koronkortaasi ay uga celin lahaayeen beerahooda oo ay faraba'an ku hayso koronkortaasi uu ayaxu ka tagay haddaba iskaashatada beeralayda ee degmada Baki oo warbaahinta la hadashay ayaa waxay qeyladaan u direen wasaaradda beeraha ee Somaliland iyo guud ahaanba xukuumadda Somaliland waxayna ugu baaqeen inay ka soo gaadhaan koronkortaasi oo saameyn ku yeelan doonta beerahooda iyo dhul daaqsimeedkii ay xooluhu u daaqi lahaayeen waxaan hadaladoodii ka mid ahaa isku imaatinka maanta halkan iskugu nimidnay wuxuu daaran yahay keliya inaanu qeyladaan la wadaagno guud ahaan xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ee aanu ka tirsannahay gaar ahaan waxaan halkan uga direynaa baaq ah wasaaradda horumarinta beeraha ee wasiirka ka yahay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muhammad kaasi oo ay wasaaraddu hore u timiday degmada oo ay kulay report ka diyaarisay una geysay waxaan uga mahad celinaynaa ka jawaabista degdega ee loo soo diray team maxaadaanay ka shaqeyn doona muddo 5 cisho maanta oo ay tahay Arbaca waxay nagu soo beegnaa teamka oo hogaaminayso waxa weeyaan isku duwaha beeraha ee gobolka Nimco laakiin waxa la yiri 5 cisho joogi doonaan degmada waxay ka horeynayaan degmada Xego oo ay maanta yimaadeen 5 cisho kadibna waxay iman doonaan degmada Baki aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa xukuumadda guud ahaan iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha kulley waxa weeyaan dadku way warxumeeyaan oo waxaan jirin baa mar walba la sheegaa annagu waxaan isugu nimidnay ma aha waxa weeyaan canaan ama cid aan ku duulimaanahay ma jirto waxa saameeyay degmada ayax dhammaan waxa weeyaan guud ahaan koronkortii oo Somaliland ka jira wuxuu hadda aad ugu habsaday degmada oo ku cusub yahay dhammaanba beerihiina beero badan looga guuray annagu waxaan u nimidnay kaliya hata inaanu baaq u jeedino wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha iyo guud ahaan xukuumadda Somaliland oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah deetii anagu maanta dawlad ahaan iyada aanu ahayn shacabka ay matali ay maxaadaanay ay dawladda u ahayd aanan filayno inay u dhagan ugu shaayay dhammaanba baaqyada uga imanaya shacabka jamhuuriyadda Somaliland ee kullay odayaashii duqeydaha iyaga ayaa ka hadli doona anigu laakiin waxaan jecelahay maanta inaan baaq halkan uga dirno wasaaradda horumarinta beeraha hay'adda FAO oo iyadu ku shaqo leh dhammaanba duufaan maxaadaanay masiibooyinka dabiiciga ah waxaan ilaahay baa keenay ilaahayna lagama cawdo oo waa loo cawdaa ma cabanayno laakiin waxaan leenahay dadaal intii bini'aadantinimo ay lahaayeen bini'aadanku lahaa aynu maxaadaanay badbaadin ummadan barakacaysa ee wixii kaliya ay beertanay eeganayeen meesha oo maanta ka baxay guud ahaan hay'adda World Vision FAO iyo dhammaanba hay'adaha ku lug leh maxaadaanay mashaariicda ama ayaxa wax ka qabanaya la dagaalankiisa rool ku leh taasi ayaan doonaynaa maanta inaan baaq halkan uga jeedino hay'adda World Vision waxay ka fulisaa mashaariic degmada gaar ahaan deegaanka ayuu wuxuu liddi ku yahay mar walba deegaankii dad ahaan iyo beer ahaanba uu kiciyay World Vision oo kulay shaqada ugu badan degmada ka qabatana aad iyo aad baan kulay uga codsanaynaa inay si degdeg ah dadkan ay maxaadana u soo gaaraan wixii ay qaban karayaan hala noo soo gurmado hala naga qabto waxaas waa masiibo muwaadina halkaas ay ku dhalatay oo ka shaqaynaysaa naga batagayso waxaan doonaynaa gurmad laxaadle oo wax qabada in la noo qabto haddii la soo diri waayo bulshada ayaa iska qabanaysa ee gargaarkii iyo dabajoogsigii hal loo soo diro bulshada kun qof oo yoom kaliya ku kacay oo hamahooda qaatay iyo majarfadooda ayaa tirtiraya magaran ama dhadhaweynaya tirtiraya calafka xoolaha iyo ka dadkaba labadaba uu israacinaya baashani waxay joogtaa 230 kiiloomitir oo isku weera ayay joogtaa dhinacan marka waxaan doonayaa jamhuuriyadda Somaliland madaxda qaranka dadka beeraha caawiya wasiirka beeraha dhammaanba inay laga soo gaaraan hawshan wixii taalkooda anagu cid ku calaanan mayno oo calaanan mayno dawladda ama wasiir calaanan mayno laakiin waxaan ugu baaqaynaa inay si dhaqsaa loo soo gaaraan oo noo keenaan suntii ayax anagu baashan ma buufin karna haddaan buufiya nidhaano annaga lafayga u sumoobayna sunta libaaxa ku buufnaa la yidhaa agrinayda ama 19 baashan la yidhaa taasina waxba kama tarayso annagiiba wada sumoolay qaar baa naga jiifa waxaas oo dhani gaamka gacmaha la gashada ma hayno baasha afka lagu xidho ma hayno wax la waxayna ma jiro dadku markay ku kamaamanay beeraha u gashay iyaga sumoobay intaasoo qof baa imka beeshina wixiina waa dhibaato weyn oo haysata marka jamhuuriyadda Somaliland haday madaxweyne tahay haday madaxweyne ku-xigeenka haday wasiir tahay hay'adaha dhammaan baa khusaysa waa inay soo gaaraan waxaan heshay
masiibo dabeeciya tiyo markii horeba muduufaankii na dhaawacay oonan wax naga gurmado na kabay aanu haynin iyay tanina sii dhaawactirtay wax alla wixii dalag iyo geeduun haato amba geedgaaba haato waxay reebaysaa daaq iyo dalag waxba ma reebayso waa masiibo dabadda ilaahay baa keenay waxaan se dawladda leenahay dawladda madaxweyne ku-xigeenka gaar ahaan wasiirka beeraha laanta beeraha waxaan ku codsanaynaa gurmad degdeg ilaahay baa gurmad leh gurmad degdega ayaan doonaynaa tii hore ee ahayd masiibadii dhacday ee barafkii mahashi maxay sagal dad baana weli sidii ka weli aan ceel ku ogiyo waxaan laga qaban tani satii way ka sii cajo badan tahayba waayo wax alla waxaan beeray taa waad ka samraysayba carrada markuu daadku haqad waad ka samraysay wixii oo kuu muuqda oo xawayaankii cunayo tamarna aan u haynin waxaan dawladda ka codsanaynaa gaar ahaan wasaaradda hay'adaha caalamiga waxaan leeyahay gurmad degdeg ilaahay baa gurmad degdega iyaan ka doonay waxa weeyaan daad baa ku dhaafadee duufaan baana lagu sheegaa roobku ku daay uu ku dhaafayaa kaasi duufaana ku dhaafayn weeyaan ayaxu isagoo oon duulayn oo gurguuranaya waa daadan ku dhaafayn oo aroor walba ku haysta markaa waxaan leenahay si degdega annagoonan u hayn suntiisii iminka waxaa jirta haamo dhabarka lagu sito maxaa lagu buufinayaa coqoon uma lihin suntii lagu buufinayay ma hayno coqoon looma le waxaa loo baahan yahay ciddii u tababarayd iyo sunteedii in si degdega la noola soo gaadho waxa weeye dhibaatada naga gaadhay waxa ka daran dhibaatada uu noo geystay dhibaatada naga gaadhay ee sumeed ee dadkii ay nin kasta markii uu beertiisa soo galo dalagii ay soo dhex galo aw la dhex raacayo sun wuxuu hayay ee xayawaanka kale uu kaga buufinaya ama dulinka kale ee beerta haysta waxa weeyaan waa in dadkii aqoonta lahaa iyo suntii ku habboonayd ee isaga wax ka qabanaysay lanoo soo diro weeyaan qayladhaanta iyadu maanta markaa si degdegaha la noogula soo gaadho cidda ay khusayso dhammaan halkan waxaan ka soo jeedinayaa qayladhaantaasoo u jeedinayo dawladda Soomaaliland iyo wasaaradda beeraha taasi oon leeyahay koronkorta dhibaatada ay nagu hayso aad iyo aad u dhib badan taasi oo waxaan ku wali aanan hayn wax gurmadana taa waxaan qayladhaan ka dir taasoo dhib aad iyo aad u taasoo dalag iyo daaq aan midnaba reebay taasoo geed weyn iyo geed yar aan midnaba reebay taasoo culays aad u fara badan nagu haysa waxa halkaasi aan ka soo jeedinay qayladhaanta halkaan ka soo jeedinayna waxaan u jeedinaynaa madaxda dalka iyo wasiirka beeraha waxaan leenahay si degdeg ah la nooga soo gaadho dhibaatadan aadka u faraha badan lee naga wataadisay maanta ee aan halkan ka sheegayno baaqa waxaan u diraynaa wasaaradda beeraha wasaaradda xoolaha wasaaradda deegaanka saddexda wasaaradood ee ay masiibadani sida dhabta ah ay u saamaysay xoolihii oo ay ka tirtay calafkoogii dadkii oo maxaan wasaaraddii deegaanka oo ay deegaankii baabiisay wasaaraddii xoolaha oo maxaan dhahay xoolihii iyaguna dhimasho noqonayaan iyo wasaaraddii beeraha oo ay khusayso wixii dalag ahaa iyo maxaan dhahay shaqadii u gaarka ahayd ee beeraha dhammaantaasi oo ay saamayn ku yeelatay bahasha loo yaqaano koronkorta waa wax dhulka soconaya oo laysla yaqaano dhibaatada ay geysatay iyo masiibadeeda dadkiina laba xaaladoodba ay khatar ugu jiraan dadkii sida ay u taagan yihiin ee ay u hor joogaan ee ay u xaadhayaan inay cadceeddii xagaa ee wakhtigaan joogno ay ku dhintaan iyo inay saamayso xaaladda kale ee kimikal ee maxaan dhahaan aqoonta dhabta aan loo lahayn ee iminka beeraha ay isticmaalaan labada xaaladoodba way ku saamaynaysaa maxaan dhahaa yaa u dheer weliba wuxuugii way cunto dadkii oo wuxuugii dhintay sun ahaan u dhintay cadceedda iyo bacadkiina ku dhintay waxaan leenahay dawladda Soomaaliland waxaan maanta uga fadhinaa ilaahay haddii uu qadaro inay naga soo gaadhaan xaaladda mashaakilka ee timiday ilaahay xaggiisa ka timiday kan ka cabaraynaa kariinka alle koronkor wax la yiraahdo koronkortaasi waxaan ku qabnaa caydhaasi waxa weeyaan cayd xoolaad iyo cayd dadba cayd xoolaad waan ku qabnaayo daaqii xooluhu noo daaqayeen maanta waxaan uga aayanaa ma jirto cayd dadna waan ku qabnaayo wixii aan dooxa wax ku darsanayna ama tabaadhaada ama calaf kale la cuno ahayd wixii waan ka soo hooyanay markaa waxaan u baahanahay gurmad degdeg ah waxaan uga baahanahay wasiirka wasaaradda beeraha waxaan leenahay wasiir
si aad iyo ayaan u cabanaynaa cabashadayadaasi tixgeli oo noo soo gurmadaan leena gurmadna ilaahay baa laga helaa waxaan leenahay wasiir annagoo abaarihii iyo duufaanadii iyo wixii la tacaalayno la dhacayno ceelasheedii waxay gudumayeen ayaa waxaa noo yimid koronkor xoolii waxay noo cunaan hadda ma haystaan waa xaalufkaad arkayso beerihiina ka badaran suntii bay caruurtii iyo dadkii naga wada waxyeeloobeen waxaan leenahay wasiir noo soo gurmo si degdeg ah noo soo gurmo adiga ayaa qayb amba wuxuu buufiyo u soo dir amba wax kalaba u soo adeegso waxaan u baahanahay inaad koronkorta aan joojinayno waxaan ku joojinayno iyo beerihi naga dhamaysay inaad nooga soo gurmataan wasiir ka codsanayna intaba saddexda wasaaradood waxaan ka codsanaynaa baaq caalami ah inay nala soo gaadhaan si degdeg ah kaas oo maaxuha waxa la yidhi bacluhu inta birta loo soo sido ayuu ka baktiyaa waxa weeyaan iminka waxaan haynaa hadda inay wasaaradda beeruhu soo dirtay hal tiim oo jooga xego halka tiima xega jooga degmada baki waxba kama bedelayo waxa weeye horta waa lagu mahadsan yihiin wixii kolley la soo diraa waan ku mahadsanaa waan u mahad celinaa laakiin waxa weeye tiim loo soo diraa degmada baki waxba kama qaban karo mana waxa weeyaan xaaladdu halkay maanta taagan tahay tiim iyo 2 iyo 3 midna waxba kama qaban karo si degdeg ah la noo soo gaadho waxa weeye hana la soo gaadho masiibada dabiiciga koronkorta wixii lagu la dagaalami lahaa ama wixii lagu tacaal lahaa yaa si degdeg ah uga codsanayna muxuu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradaba intaad baaqaasaan u diraynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si degdeg ah loogu soo gaaro si degdeg ah loogu yimaado geesta kale isaguna waxaa ka deeriyay xaaladda koronkorta ee degmada Baki gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi Dayib Xasan Raaga Cudada waxaana ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland in ay si degdeg ah ula soo gaadho gargaar beeraleyda degmada Baki ee koronkortani ay xuka tagay ay ku absatay waxana hadaladiisii kamid ahaa waxaan saaka ka hadlaynaa fadan ama dhibaatadani ka jirta geeskanba ee uu keenay ilaahay baa keenay ayax sidaan ognahay degmada Baki waxay ku tiirsanayd markayba horeba waxay lahayd 2 nooc xoolo iyo beero sidaan ognahay 2 sano ka hor xilligii hore duufaantii sagar waxay dhibaato u geysatay beerihii iyo xoolihiiba laba inta waqtiga ka dib waxay dadaal lagu jiray sidii loo badbaadin lahaa xoolaha iyo beeraha saan ognahay beeraha dhul beereedka ugu muhiimsanaa ilaa maanta rafaadkii baa lagu sii jiray wax ka qabsoomina weli ma jirin oo muhiim tii taagan tahay dadka aafadii la leecleecayaan waxa dhacay maanta haddana aafo kale oo caalami ah ayaxan sidaad ogtihiin ayax baa markii hore maray koronkortii baa maantana ku dilaacday mid baa maanta dilaacaysa oo weli dilaacinba waxaana daba leenahay xoolihii waxay ka cuntay daaqii dadkii waxay ka cuntay sarcii waxay noqonaysaa macnaheedu waa isku itaal xoolaha iyo beeraha iyo wixiiba maanta dhinac kaliya oo loo badbaadi karaa ma jiro haddaba aan odhan lahaan ilaa maanta oo bishii 5aad oo dhammaystiran tiyo lala leecleecay iyada lafteeda aafadan adduunyada ku soo korodhay ee xanuunkan COVID-19 rafaadkiisa iyo daalkiisa lagu jiro maanta oo la joogo waxa noogu biiray waxa soo dhan ka aafadani ayaxa haddaba waxaan leenahay wasaaradda beeraha oo xil saaran beeraleyda wasaaradda beeruhu waxay xil saaran tahay dhibaatada beeraleyda iyo faa'iidada beeraleyda waxaan oran lahaa wasaaradda beeraha iyo hay'adaha dhammaantood ay khusayso dhibaatadani tiika neerad ee ka hortagga masiibooyinka iyo dhibaatooyinka oo sida runta ah neerad oo shaqo fiican nala qabatay xilligii muxuu ahaa duufaantii dhibaato badan nagala qabatay waxaan oran karnaa hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydka qaranku waxay nala qabatay shaqo fiican xilligii duufaantu dhacday waxaan oran lahaa wixii aad qabateen
waxa ka daba yimiday waxa maanta dhacay waxna daba leh wasaaradda beeraha tii hore anagoo ka sugayna inay tallaabadii ka haboonayd ka qaado tii hore tii tallaabo ka qaaday bay tana soo gaadhay waxaan leeyahay wasiirka beeraha wasaaradda beeraha hogaaminaya wasiirka beeruhu tallaabo degdeg ah ka qaadaan waxay itaalkooga ha ka qaadaan hawshan maanta taagan Kariya Cabdi Shafaar Sikariye Saxane degmada Baki ee gobolka Awdal.